midaygu waa hiraadii bartamihii qarnigii hore niman xidid iyo xigaalba aha ayaa u soo muraad doontay dhankaas iyo ceelkii biyaha diiranaa ee Burco. waa safar soo raadsaday gasiin dhar dawo iyo wixii agab ah ee magaalo loogu soo hilan jiray. kolkii ay soo dhammaysteen muraad qumiskooda ayay u kaba ileedeen inay dib ugu galbadaan dhankaas iyo halkay ka soo jiidaaleen oo ahayd hawd iyo haradigeed. raggaas waxaa ka mid ahaa Xirsi Caamir, Aar Xandulla Nuur, Diiriye Awguuleed iyo Weerar Cali Geele oo isagu ahaa ninkii iba furay silsiladan caawa idinku haasaawin doono loona garan og yahay silsilada Xaydha. waxay ahaayeen niman huud ku qabay gabayga iyo gebi ahaanba jaadadka suugaanta oo aan ninna ka kale u dhiiban. markii la jeestay ee safarka iyo socdaalka maalinsawaadka la gudagalay dhaqan waxaa iska ahaan jirtay in raggu kaftamaan isxifaaleeyaan islamarkaana ishaasawa gaasiraan. iyadoo haddaba raggaas Burco ka soo carraabay meel dhexe marayaan ayay Xirsi Caamir ka durraanteen inuu awrtiisa ka soo rogo subag iyo dufan kolkii hore isaga loo qaybiyey oo la doonayay in lasii harqado inta la marayo waaqlada kaymaha ciriidda jeexyada boholaha bannaanada xadeed iyo omaska si aan loo dareemin wax haraada maadaama oo duxdu ka adag tahay surmiga. Xirsi Caamir wuxuu raggii u keenay subag se subag oo dhan waa kala wacnaaye wuxuu sitay warbaa ka soo gadaal noqday. kolkii raggii socotada ahaa ka giigeen kana haageen iskuna goosteen timirtii iyo subagii ee socdaal loo holladay ayuu Weerar Cali Geele la sara joogsaday gabay iyo eed hor leh. wuxuu Weerar Cali ku hiifay ninkii Xirsi Caamir inuu falay wax daran oo aan meesha qaban oo codcod ha joogee uu soo walwaashay waxil leh. wuxuu ku eedeeyey inuu raggii dufanka u dirtay uu u keenay xaydh aan ragga ku kufahayn oo ah noocii haamaha lagu dhayi jiray kolka jirriqaagu dhaawaco halkii uu sixin iyo maakhiri lo'aad u keeni lahaa ama dee heenka geela. yaanan hadalka tamina wuxuu yidhi Weerar Cali Geele, Xirsi Caamirow layna hiif laguna haaraanye alla ilaahay habaar baad qabtaa waana la hubaaye ragaduu horfulo kaa dhigto hiba laguu yeelo waa loo hagaajaa anfaca hagrasha waa ceebe nimankan hablaha kala qabniya hurinta reer muuse inaad la hormartaa ma yeekeen waxaan habboonayne hor ilaahay soor wacan adaan noogu hawlgeline hilibka iyo maakhiriba waa heli karayseene hareeraha kun miiddaa jira laga hiraabtaaye meeshaan hanaan gobonnimo iyo hadyad ka eegayey haf miyaad la tidhi xaydh sidaad haan ku dhayanayso. Xirsi Cali Buraale oo Xirsi Caamir lagu garan ogaa muu garwaaqsan eedda uu ku soo galay Weerar Cali Geele wuxuuna u arkay gef iyo gardarro iyo daandaansi bilowgiisa ah oo isaga lagaga niib doonayo. wuxuu sidoo kale Weerar kula garramay inuu subagan uu Xaydha ku sheegayo uu wax gacanta ka geliyey sidaa darteedna ay ceeb iyo wax sheexo ah tahay in wax aad labaliqday aad hadal ka keento. wuxuu ku ganayaa inuu iska hataatacay markuu curaagtay oo aanu run sheegayn waayadeed wuu iska weecin lahaa haddiiba wuxuu xun yahay. wuxuu yidhi Xirsi Caamir, hadalkaadii tidhi Weerarow waa huf iyo beene adiguba hortay waxaad fadhiday hooska tuulada habeenuu wax sii ururiyaa hawd ninkii qabane haydaarada iyo waadogoyd hilinkii dheeraaye hayin iyo markaa subag heshaan hawdku soo mariyey ee aad dabagadiid ka hirqataad honona aysaaye hareeraha kaleefkii markay gacantu haarowday waatay fartii hilib daqlaha kaa haraatidaye nin wixii hungurigiisa maray hiifay waa qadafe hareer buu isaga weeciyaa waxaan habboonayne haddii uu hogseeg yahay maxaad uga hakoon weyde. markay halkaa heejinayso ileen meesha reerihii wax faambiyi jiraa isku haleelaye nin saddexaad baa soo galay silsiladii. kolkii Weerar iyo Xirsi Caamir labadaa tixood isku halgaadeen ayay raggii socotada ahaa ku kala qaybsameen ka gar leh labada nin. qolo tidhaahda Weerar baa gar leh iyo dar leh Caamir baa gar leh ayay u kala baxeen. waxaa iyadoo sidaa loo yooyootamaya silsiladii soo galay oo bedheedhihiisa dhiibtay Maxamed Nuur Abakar oo loo yaqaanay Huube. wuxuu Huube gartii ku qaaday Caamir oo uu ku tilmaamay nin aan milgaha xididnimada biid ka aqoon dar xurmo ka mudnaana xaydh siiyey. wuxuu yidhi Huube, rag baa gabayga moorada ka daya Maxamed Xaashowe maluugta iyo way kala tagaan minan qalloocdaaye markaanse anigu meel kaga dhacaa murama joogaaye rag la madhay mageyniyo xidid mudane saad qaatay oo kala ma jiraysahay intuu maalkii kala qaybsay maqsabkii ka soo hadhay hadduu midigta kuu saaray kol haddaad magaalana fadhiday manina dhiibaysay oo lacagtu waa madhan ogtee midigtu kuu buuxday miid dhuuxah baa laga helaa maalin iyo leyle maakhiri lo'aad baa kundaas lagaga miisaaye muraad noolba waa laga helaa moodka kii culuse inuu subagu kaa muuna dhacay maqar islaamkiiye muslax Caamirow kuma garnaqo mali iyo beenbeene mudaahanadu waa waxa qarribay madaxda reeraaye haddii xaajadii muran ka dhaco laygu soo meersho milmilahaw dhashee inaan dulmiyo maanka kuma hayne hadba moosinkay taagantaan kaga majiiraaye gar haddaan melmeli xaajigaagan marag ku qaadaane
inaan adiga kula meel ahaad muhatay dhowr jeere abtirsiimo meeluma hayee hay miliilicine haddii geelu waa maal jiniye mool fog naga aado uusmiirka kama maaranno waa mitibinaaye mar baa garowgu naaguhu midhaan magas ahaadaaye wow macandis ruuxii dib jiray madax ugaadheede haddii weerar hadalkuu marsaday maragu soo joojo oo uu wax laba miiciyee maadha ka caddeeyo nin kastaa manfacadii ha cuno murudku xaydhiiye waxba yaan ku madadaalinine moosku kugu cirye hagaag gartaa uu gooyey huube iyo gabaygaasuu kula saftay weerar waxaa ka biyadiiday oo wax aan loo fadhiyin ku tilmaamay diiriye awgeeleed oo ay isku dheri ahaayeen labada ninba wuxuu diiriye huube uga digay in aanu gacantogaalayn gar aan weerar maragu haysan wuxuuna yidhi haddii weerar hadalkuu marsaday maragu soo waayo oo uu wax lama miiciye muujin kari waayo macalqabasho dhaareed xirsina yowmur soo tidhiye hadduu maro madaacalayna yahay meertay dabadeede kolkaasoo muducigii handaday moosku kuma cirin huube hadal waa soo rogan waaye wuxuu haddana diiriye ku laba shubay in gartii uu qaaday eexahayd oo hawdiyo haradii gaashaamaba lagaga haasaabayo wuxuuna yidhi diiriye guuleed gartaad maxamed huubow naqdee uunka wada gaadhay gaashaamo inoogu timi galab carrawtiineh dayuuradaha guuraynaya iyo gaadhiyaa sidaye guddi nin ah shareecadaba waa lagala giigaaye gedigii xirsi cismaanka iyo guudka habaryoonis gug baa laysku yidhi xaajadaad goysay keligaaye haddiise hadalka lama guud maree odayo loo geeyo guntii waxa ah huubow inaad gawdh is leedahayee ninkii galaxsanaabaa ku helay ee geddayn jiraye geed buu ku saaraa markuu kuu golleeyahayee kolka sare cirirku kugu geedi yahay layska garan waaye qumbaa subaga laga soo gingimay ee la kala goostay ninna soo gad kii kalena waa tuu guddoonsadaye waa tii guntiga loo furtay laysku gaabsadaye maxaad caamir ugu geetitaa isugu guban maysid iyadoo huube laba gabay lagu wareemay gartiisana eexo iyo salfudayd lagu sheegay ayaa waxaa silsiladdii isku soo laliyey aar xandulle nuur oo huubaha garta isla gooyey adeeru ahaa wuxuu aar xandulle naqay gar la mida tii inasan weyne iyo seedigii wuxuuna garta siiyey caamir kii lagu haaraamayey inuu xaydh ragga ka hiraabiyey wuxuuna huube ku canaantay inuu naqay gar aan marag iyo miidaan toonna lahayn wuxuuna yidhi aar xandulle milgaha gabay cismaanow beryahan waanigaan marina ka mastuurtay waa hore haddaan miiganaan jirayee rag wixii ismaagaba garbaa lagu muquunshaaye waxaan anigu maankay ka helay marina aan mooday kol haddaan muducigii garta ah maragu soo joojin ama aan madaacali weli lagula soo meerin aan labada meelood dacwiga laysu soo muujin oo aan guddidu meel u bixin kharashna meelaynin waa ila maroor caamirow mooska kugu ciirye afartaa wax lama miiciye maadh ma ka caddeeye midna waxaan ka idhi xaajadii laysku maandhaafay meeshaa ma joogine waxa igu maqaalowday mergi weyne awr bay anfaco uga milaalayde masruuf waa siteen jaad kastaba mudanka sooreede timir malab leh shaah muluukiyaa miingi ka ahaaye macaluulka yaab iyo xarrago waaba kalamaane muslimo haddii loo garnaqo marinka dawleeya uu maragu furo xoolaha layna maqashiyey miyaan xaydh madow maalinkaa lagaga maarmaynin halkaa iyadoo arrini taxtaxaashidayso oo kooxdii caamir gacanta sare leedahay ayaa waxaa gabaygii soo galay nin la odhan jiray jaamac xirsi dubbe wuxuu jaamac la saftay kooxdii eedda wadda ee weerar cali geelle wuxuu xirsi caamir ku eedeeyey inuu yahay ruux soo walwaashay wax shayddaan kaaga darana wuxuu weerarna ku tilmaamay nin gar u lahaa inuu ka girgisho xaydha loo keenay wuxuuna yidhi jaamac xirsi dubbe niman yahow gondaha reer xirsi iyo guudka habaryoonis haddii gabaygii xaydhee fogaa haatan go'i waayey oo weliba lama gaamgaambinine gees walba u duulay galka beeratiyo ceelxumiyo gobabka oodweyne gaashaamo iyo yocobyabo goodiyada ceelka iyo goodiraale iyo xalxalis geedda laga waabay guryuhu badanahay waa dharkiibaa galabta keenteene waar balgaabsada yaanu noqon gocondho weeyaane ragse gadoomay meel socotadii gaadhu ka idlaatay mar haddii guryaha laga durkood gacal ka dheeraato goodigana joogoo hunguri guuri kari waayo gasiinkii xalaal kuu ah baad gacanta saartaaye gulcubse waxa ah kaad garan la'dee goobta kaa dile ee gaagaade soortii xumayd gaaja waa cudure u garowna inuu weerar cuno gabayna wowdowwe nimankii gabdhaha qabay haddii guushka la hor keenay kuma gubanina dee caamir baa gaday wax shayddaane ninkaad adigu waa garaxsantiyo geda ku sheegaysii intuu ficilku kula gees hordaad gaadhay huubana garta marag ah adigaa ku furay goor horreetaba ee dhaaxaad gashaad xaajo weyn
goyse keligaayo guddiga looyarkeedaa tahee haysgabbaanadine godkaa maxamed naqay diiriyow gawdhis laga waa tahay iyadoo lays eeday silsiladiina carre'eeda ku faaftay ayaa waxaa mar labaad silsiladii ku soo ragaalceliyey xirsi caamir oo ahaa ninkii ku eedaysnaa inuu rag mudan iyo maamuusba leh ku sooray xaydh noocii haamaha ah oo aan qaban meesha in la wadi jirayba wuxuu yidhi caamir midhkaad tidhi adaan kugu qabsaday maxamed nuurowe maantuun hamoodine horaa muran u taagnaaye nin maroorsay xaajada ifkuu murug ka qaadaaye makfira iyo haddii aanu celin mahad allee toobad miisaanka aakhirana waa man iyo dheeraadeh wax mustaqil noqda iyo wuxuu mudici maragu soo joojo iyo wuxuu madaacalay qurdi iyo xeer iskaga meersho kol haddaanad labadooda muuq meel isugu keenin oo aan guddida dhowr milgelih meesha kula joogin macnaba maaha xaajada inaad qolo ku moostaaye waa maxay masaladaa naqdeen adiyo maankaagu haddii weerar hadal uu marsaday maalma kuu tiriyey oo uu manfacadii uu cunay muhobbiyoo caayey uu sida ibliiska ismaldahay midabbo dhowr jaadle ood adigu macaluulka hadal meesha soo gelisay waxaan ahay madaacalay mudici moosinkeed bixine anna maantixdaan maaganaa miinka ka caddeey inaannu maalin soo qadin burciyo madashii reerkooda isagay muraad wada siteen meeshana u xigaye magiciis ha raagee xirsaa ii markhaati yahe ismajiiristii socod kolkii sahay la maageeray wax dhammaan muddadu noo ahayd muudhka subagiiye aan mushtariga wada iibsannaan muran ka oognayne maakhiri lo'aad iyo mid adhi meesha may geline isagay muraad wada siteen meeshana u xigaye magaciis ha raagee xirsaa ii markhaatiyah hadduu meel ka gaabtana qurdaan maganu jooga ganaqsiga caamir waxaa ganafka ku dhuftay oo huube oo garab siiyey nin guuleed xawaashi la odhan jiray oo oolahaan tax dhiga beesha arab waxa huube lagu gowriyaa waa garaad xume eh annagaa gartiinnii noqnoon gees ka mari hayne kol hadduu garaad leeyahoo gugu u weynaaday ninkii xaydha soo gaday ayaan eedba isugu geey waxaa iyadoo halkaa xaal marayo arrintii soo galay oo kale ku soo noqday aarxandulanor oo daba jabacsanaya guuleed xawaashle sida aynu ciyoon soo aragnay guuleed wuxuu tax dhigaa beesha arab la yidhi taa aawadeed wuxuu aarxandulle shaamareer ku tilmaamay inuu guuleed soo dhex galay duul habar yoonisa oo isaryanaya wuxuuna yidhi aarxandulle xa'da gabay baryahan diiriyow xaaladdeed digaya caawana xasuus baa qalbigu xaajada u galaya xeerbeegtii waa inay guddida xaqa ka sheegtaayo xistiga iyo shareecaduba waa laba xariiqoode hadba xadba u dhigan dabaabkiyo arjiga xarafyadiisiiyo midba xaashiba malag hayaa loo xadidayaaye xintifaalo abidkeedba waa xeerka dabadeede xirsi iyo ninkaa weerar cali laysxasaradeeye subagay xanaanka u siteen laysku xaaleeye kol haddaanad xogogaal ahayn maragna xuuraamin xaydh iyo inuu sixiin ahaa looma xeel bixine xag ilaah waxaan deyin guddidii xaalka loo dirayo aakhiro xisaab baa jirta iyo xaq iyo miisaane gartan xaalil noo niqinna waa lagu xidhmaayaaye xusbadeeyey oo 10 nin baa xaajadaa naqaye inuu gabaygu xaal leeyaan xaqa la sheegayne xigto looma waayina ku filan reer xisib cismaane waar guulad xawaashana maxaa geliye xiiqeed kolkii guulad xawaashe tixdaas maqlay aad buu uga cadhooday quursiga aarxandulle nuur wuxuu kaga fal celiyey gabay garnaqsi iyo goodiba ahaa oo uu kula hadlay aarxandulle wuxuuna yidhi guulad xawaashle weligiiba guuligama helin gaban iswaalaaye gufaacooyin baan ridi lahaa waan ka gaabsadee guulad xawaash baan ahay iyo guurtidii hore ee geddigii islaamkana haddii eedii kala gaadho gaafaan ku leeyahay haddaan joogo galohaase waxa ay geliye xaajada tolkaan kala guraayaaye gugii galaba gabadh baan dhisaa gogolna raacshaaye goolkiyo wankaan naaxiyaan kugu gargaaraaye adna meeshii kaa gaabataad igu gufaysaaye haddaan guuro oo reer tolkay ciidanka u geeyo bal maxaad ka guran maalintan guricas ku reebo iyadoo halkaa laysla jibaaxayo ayaa waxaa silsiladii ku soo rakaad celiyey oo ku soo shubay diiriye awguleed oo dhanka caamir kii xaydha keenay ka socday diiriye wuxuu dareemay in kooxdoodii xaydha difaacaysay la soo kubeeyey sidaa darteed wuxuu u qaysaday jaamac xirsi dubbe oo ay garab isku ahaayeen wuxuuna yidhi qawdhan iyo malaha jaamacow waa ay qaladeene qarshi iyo waxay dheefsadeen quudkii tuulada ee kayrada xirsi cismaan intaan qaylo marinayo ee xaajigii qararo jiray qabarku gaadhaayo qarsiinada miyaan yeelayaa qaadir baa jire jaamac oo qayladii gaadhay balse meel fog inaan layaal ku ahaa ayaa waxa uu ku tilmaamay in subagga kolkii hore la hirqaday oo lagaga haagay wuxuuna yidhi jaamac axmedow ninkii qabanayaan qodob u sheegaaye qararre iyo waataan fadhiyey
gurigii qoorwaaye qabaar kaba nin ahayn baan ahoo qoobka dhacay mooge qaylada dhankaa igaga timi qoladii aan sheegtay qurux ma laha dhuunigu hadduu la ysku qoonsada ee khasaarihii salaan waa wixii jaray qudheenniiye jiilaal qawaarsaday abaar qamacu duulaayo horta yaa balqoonsaday ninkii subagga soo qaaday haddii aa qubtaan weerarow qunimo yeedheene hadduu subaggu qurun yahay maxaa loo qurqurinay weerar cali geello ahaa ninkii judhii hore iba furay balse aan dibinjaaqin intii laysiifayey ayaa kolkii labaad soo rogaal celiyey baanisaha isagoo u muuqda nin isagu gartii helay wuxuuna yidhi weerar qabaar kaba nimaan haynin oo qaafilaa tahaye qararre iyo waxaad fadhida gurigii qoorwaaye subaggii qarmoonaa waxaa loo qurqurinayey qarfadii la marayey naftii qada u waayeene nin qudhiiba haysaa xarrago